bismillaahi raxmaani raxiim. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhowaada. waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey shirkii golaha mustaqbalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gebi ahaanba fashilmay, madaxweynaha jubbaland axmed midoobe oo dib ugu laabtay magaalada kismaayo. sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaynaa cidda ka dambeyso fashilka ku yimid shirweynaha markaasi u dhexeeyey golaha mustaqbalka iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. yaa qaadaya mas-uuliyadda fashilka shirkan? maxayse ummadda soomaaliyeed uga dhigan tahay in uu burburo wadahadalkii la filayey in dhinacyada isdiidan ay isu soo dhowaadaan? qaybaha dambe aragtiyadiina ayaan markaasi idiin furi doonaa oo waad kasoo dhiiban doontaan daawadayaal. balse marka koowaad soo dhawow muuqaalkan laygaree siina sheergare si dad badan xogteenna ay u gaarto. gebi ahaanba waxaa fashilmay shirkii golaha mustaqbalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud shalay markaasi uga qabsoomay xarunta villa soomaaliya. inkastoo shirkan xilli horeba uu fashilmay, haddana waxaa laga dhuursugayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qabsaday muddo kooban in laga warsugo oo uu madaxdan dib markaasi ugu soo warceliyo. balse qoraal ay soo saareen golaha mustaqbalka ayay markaasi ku sheegeen in gebi ahaanba shirka uu fashil markaasi kusoo ilaaday. golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in wadahadaladii villa soomaaliya ay markaasi natiijo la-aan ay kusoo ildaadeen. siyaasadda dalkana waxay haatan gashay marxalad cusub oo xasaasi ah kadib markii golaha mustaqbalka soomaaliya uu si rasmi ah u shaaciyey in uu fashilmay shirkii ay lahaayeen madaxda villa soomaaliya kaasoo markaasi kusoo ilaaday natiijo la-aan. war-saxaafadeed uu golahu soo saaray ayaa waxa uu markaasi iftiiminayaa kala aragti duwanaansho qoto dheer oo u dhexeeya labada dhinac, gaar ahaan arrimaha ku saabsan wax kabeddelka dastuurka, nidaamka federaalka iyo hanaanka doorashooyinka dalka. eedeymo ku saabsan habraaca dastuurka, golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in ay si markaasi hal dhinaca u wado isbedelo lagu sameynayo dastuurka kumeelgaarhka ah ee 2012 iyadoo markaasi aan la helin wadatashi qaran oo markaasi loo dhan yahay. golaha ayaa ku dooday in wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka uu u baahan yahay heshiis siyaasadeed oo ballaaran iyo ka qaybgalka dhammaan dhinacyada markaasi daneeyayaasha. waxaa sidoo kale ay walaac ka muujiyeen qorshayaasha la xiriira qaabka doorashooyinka mustaqbalka, iyagoo sheegay in muddo kordhin kasta ama dib u dhac ku yimaada jadwalka doorashada ay dhaawici karto kalsoonida shacabka iyo hay-adaha dowladeed. dowladda federaalka oo lagu eedeeyey ku tagrifal awoodeed. qoraalka golaha ayaa tilmaamay in dowladda lagu tuhunsan yahay in ay dooneyso inay si deg dega u meelmariso isbedelo markaasi la xiriira awood qaybsiga federaalka iyadoon la tixgelin aragtida dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka. golaha mustaqbalka ayaa ku adkaystay in hanaanka federaalku uu yahay tiir muhiim u ah xasiloonida iyo midnimada dalka, islamarkaana aan la ogolaan karin wax kabedel lagu sameeyo si deg dega oo aan markaasi loo marin wadahadal qaran. saameynta siyaasadeed ee fashilka wadahadaladan ayaa imaanaya xilli uu dalka wajahayo cadaadisyo markaasi isbiirsaday oo ay ka mid yihiin xaalado amni, dhaqaale iyo sidoo kale isbedelo siyaasadeed oo heer gobol iyo heer caalami. falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa qaba in markaasi burburka wadahadaladu ay sii adkeyn karto kala fogaanshaha siyaasadeed, islamarkaana uu hakad gelin karo dadaalada lagu doonayo xasilinta nidaamka dimuqraadiyadeed ee dalka. dhanka kale, taageerayaasha golaha ayaa sheegay in mowqifkooda uu yahay mid lagu difaacayo dastuurka iyo nidaamka federaalka, halka qaar kalena ay ku baaqayaan in labada dhinac dib markaasi ee ugu laabtaan miiska wadahadalka si looga fogaado jahwareer siyaasadeed oo markaasi dheeraada. golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay muujiyaan feejignaan iyo sidoo kale ka qaybgal firfircoon oo ku aadan ilaalinta dastuurka iyo geedi socodka doorashooyinka. waxay caddeeyeen in ay diyaar u yihiin wadahadal dhab ah oo ku dhisan is-ixtiraam iyo wadatashi, balse aysan aqbali doonin go-aano hal dhinaca oo lagu weeqayo hanaanka markaasi dowladnimo. xaaladda ayaa haatan u muuqato mid u baahan dadaal dheeraad ah oo lagu soo celinayo kalsoonida siyaasadeed, iyadoo indhaha lagu hayo sida ay villa soomaaliya uga falceliso warmurtiyeedkan iyo albaabada markaasi wadahadalku in ay dib u furmi karaan. dhinaca kale, madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo. axmed midoobe ayaa markaasi ka biyadiiday in uu mar kale hor fadhiisto madaxweyne xasan sheekh maxamuud, isagoona markaasi si cad u sheegay in uu fashilmay wadahadalka, dowladda federaalkana aysan diyaar u ahayn waqti xaadirkan in ay wadahadal markaasi rasmi ah oo miro dhal ah ay la gasho xubnaha golaha mustaqbalka soomaaliya.
haddaba yay fursad u tahay burburka markaasi ku yimid wadahadalkan mar kale. golaha mustaqbalka ayaa haatan haysta fursad weyn maadaama xasan sheekh maxamuud qorshihiisii uu u socon waayey ee ahaa in uu ka dhaadhiciyo qorshaha filla Soomaaliya ay damacsan tahay xubnahan ama dhexdooda uu kala jibiyo. waxaana haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku qasban yahay mar kale in uu wadahadal uu ugu baaqo dhinacyada isla markaana uu hor fadhiisto. Axmed Madoobe oo doorashadiisii ilaa hadda dowladda Soomaaliya aysan wax aqoonsi ah aysan siinin oo rasmi ah ayaa isagana guul kala laabtay magaalada Muqdisho, taasoo ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay u aqoonsatay madaxweynaha Jubbaland oo ay la fariisatay isaga oo markaasi ay garab fadhiyaan madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. fadhigaas ayaa ka turjumaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah u aqoonsatay doorashadii Axmed Madoobe maadaama meeqaamka meesha uu ku fadhiyay uu ahaa meeqaamka madaxweynaha Jubbaland. haddaba maxay yihiin doodaha markaasi si cad aan banaanka weli loo keenin balse hareeyay shirkii golaha mustaqbalka iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana keentay in shirka hore loo sii gudageli waayo oo uu fashil ku soo ilaado. sida ogaatay warbaahinta durdurka wararka, madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa soo jeediyay in doorashooyinka dowlad goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed si degdeg ah ay markaasi loo qabto. taladaas ay soo jeediyeen Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan seeray waxaana si cad ugu sheegay in arintaas ay tahay mid markaasi khusayso dowlad goboleedyada doorashooyinkooda ay u taalo iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. wax tala ah ama tusaaleyn aan aysan ku lahayn dowlad goboleedyada kale sida Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. waxa uuna markaasi carabka ku adkeeyay Xasan Sheekh Maxamuud in doorasho qof iyo cod ah halkaasi ay ka qabanayaan dowladda federaalkana ay markaasi si weyn arintaasi uga qayb qaadanayso. madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo arintaasi ka carooday ayaa waxa ay markaasi sheegeen in waqti xaadirkan doorasho dadban waxaan ahayn dalka aysan ka socon karin isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay wado dhalanteeda aan horey markaasi u sii socon karin. dhinacyada ayaa markaasi aad ugu kala fogaaday aragtida ah doorashooyinka dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle, waxayna markaasi soo jeediyeen in dalka haatan uu marayo marxalad siyaasadeed aad u cakiran isla markaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyadan muddo dhaafka haatan markaasi ku jooga doorashooyinkooda si degdeg ah markaasi loo ambaqaado, iyagoo markaasi raadinaya garab siyaasadeed xoogan oo ay ka helaan dhinacyadaasi haddii doorashooyinka ay kusoo laabtaan ama xubno kale halkaasi ay yimaadaan. isla markaana haatan maadaama ay yihiin laba dowlad goboleed oo markaasi isbahaystay waa Jubbaland iyo Puntland, iyagoo markaasi raadinaya dowlad goboleedyo kale oo safkooda kusoo biira. maadaama madaxda dowlad goboleedyadan ay weli cadeynin mowqifkooda ay aamusan yihiin, waxay xogaha tilmaamayaan in ay la aragti yihiin waqti xaadirkan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland isla markaana ay diyaar u yihiin qabashada doorasho dadban. haddaba dad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan, fadlan like gare siina share gare si dad badan warkeena uu gaaro, naguna soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo si aad u hesho wararkeena xiga ee kusoo kordha xaaladda siyaasadeed ee dalka. aragtidaada waa noo muhiim, qaybta hoose ee faalada noogu reeb. mahadsanidin.